Olen Asko Järvinen, olen infektiosairauksien ylilääkäri ja minulla on tärkeää asiaa meille kaikille uudesta koronaviruksesta. Waxaan ahay dhakhtarka magaciisa la yiraahdo Asko Järvinen. Waxaan ahay dhakhtar sare oo ka tirsan qaybta caabuqa ama infectionka isbitaalka. Waxaan maanta idin hayaa arrin muhiim oo ku saabsan viruska corona. Anigana waxaan ahay Cabdirasaaq Sugule Maxamed, turjubaan luqadda Soomaaliga ah oo ka socda shirkadda Atulkos. Nyt ihmisiä sairastuu uuteen koronavirukseen. Sen ensimmäiset tapaukset todettiin viime vuoden lopulla Kiinassa. Waxaa hadda caalamka ka socda xanuunkan cusub ee loo yaqaano coronavirus, kaasoo kasoo bilowday dalka Shiinaha sanadkii hore dhammaadkiisii. Koska kyseessä on uusi tauti, voivat kaikki sairastua siihen. Kenelläkään meistä ei ole vastustuskykyä. Waxaa laga hadlayaa waa xanuun cusub. Qof walba oo naga mid ah wuu xanuunsan karaa. Dhammaanteenna ma lihin awooddii difaaca jirka ee aan iskaga celin lahayn. Tautiin ei ole tiettyä lääkettä eikä myöskään rokotusta. Xanuunkani ma lahan wax daawo ah u gaara, sidoo kalena weli looma soo saarin wax tallaala oo looga hortegi karo. Tauti tarttuu ihmisestä toiseen pisaratartuntana, esimerkiksi yskittäessä tai aivastaessa. Se voi myös tarttua, kun ihmiset ovat lähellä toisiaan, halaavat tai kättelevät toisiaan. Xanuunkani wuxuu ku faafaa dhinaca qufaca ama hargabka oo markii qofka uu qufaco ama hargab uu ka yimaado waxa afkiisa ka soo baxaya dhibcaha ah. Sidoo kale waxaa dhici karta uu xanuunkan ku faafaa markii labada qof ay isu dhow yihiin ama ay hab isa siiyaan ama ay gacanta iska salaamaan. Tauti alkaa yleensä 5-7 päivän aikana tai 2 viikon sisällä siitä, kun on saanut tartunnan. Xanuunka waxa uu bilaabanayaa 5 ilaa 7 cisho gudahood ama 2 usbuuc gudahood laga soo bilaabo daqiiqadii qofka uu u gudbay xanuunku. Koronavirustartunnan oireita ovat kuume, kurkkukipu, lihaskipu, päänsärky, nuha, hengenahdistus, vatsakipu ja ripuli harvinaisena ja maku- ja hajuaistin menetys. Oireita voi olla näitä kaikkia tai vain osa niistä. Osalla oireita ei ole lainkaan, osalla oireet voivat olla lieviä, osalla vakavia. Samanlaisia oireita on myös flunssassa ja influenssassa. Astaamaha lagu garto xanuunkan viruska koronaha waxa ay kala yihiin qandho ama xumad, dhuunta ama cunaha oo qofka xanuuna, murqa xanuun, madax xanuun, hargab, calool xanuun iyo shuban, neefta oo qofka qabata iyo urka iyo dhadhanka oo qofka ka taga. Astaamahaasi dhammaantood qofku waa u yeelan karaa ama qaar ka mid ah ayuu isku arki karaa. Sidoo kale waxaa dhici karta qofku inaanu wax astaana isku arag. Astaamaha qaarkood waa kuwa aad u khafiifa oo xanuunkoodu uusan badnayn, qaarna xanuunkoodu aad buu u kulul yahay ama u adag yahay. Sidoo kale isla astaamahaasi waa kuwa ku dhaca qofka marka uu hargabka ama influenssadu ay ku dhacdo. Taudin vakavuus vaihtelee. Osa ei huomaa saaneensa tartuntaa ollenkaan. Heillä tauti on oireeton. Osalla tauti paranee itsekseen eikä ole tarvetta käydä lääkärissä. Osa tarvitsee sairaalahoitoa ja osa joutuu tehohoitoon. Osa potilaista myös menehtyy koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Xaaladda khatarta ee xanuunkan waa mid isbedbedelaysa. Dadka qaar ma ay dareemaan in xanuunkii uu ku dhacay. Qaarkoodna waxaa weeye wax astaan amaba lahanba. Dadka qaar waxa ay ku bogsadaan gurigooda iyagoo ku nasanaya umana baahdana in ay dhakhtar yimaadaan. Qaar dadka ka mid ahna waxay u baahan yihiin daryeel dhakhtar. Qaarkood waxaa dhici karta inay u baahdaan daryeelka xaaladda degdega ah. Waxaana iyadana sii jirta in dadka bukaanka qaarkood ay u dhintaan dhibaatooyinka uu keeno xanuunkan coronaviruska. Erityisesti vanhemmilla ihmisillä, yli 70-vuotiailla, tauti voi olla vakava. Tällöin voi tulla vaikeaa hengenahdistusta. Tauti voi olla vakava myös, jos on jokin muu sairaus, kuten astma, keuhkosairaus tai sydänsairaus. Näitä ryhmiä kutsutaan riskiryhmiksi. Tauti voi olla vaikea myös nuorilla ja perusterveillä, vaikka se heillä useimmiten
on lievä. xanuunka waxa uu aada ugu daran yahay dadka waaweyn oo da-doodu ay ka weyn tahay 70 sano. waxaa dhici karta in uu si aada xanuunku u qabto haddii qofku uu qabo xanuuno kale sida tusaale ahaan xanuunka neefta oo kale, xanuunada sanbabada ku dhaca iyo xanuunka wadnaha. dadka noocaas ah waxaa loogu yeeraa dadka u nugul halista cudurka. waxaa kaloo dhici karta in xanuunku uu khatar ku noqdo dadka dhalinyarada ah iyo dadka caafimaadkoodu uu caadiga yahay intaba. On tärkeää, että estämme taudin leviämistä, koska osa koronavirustartunnan saaneista tarvitsee sairaalahoitoa. Suomessa ja monissa muissa maissa yritetään hidastaa taudin leviämistä ihmisestä toiseen. Tällöin hoitopaikat sairaaloissa riittävät. Rajoituksilla pyritään myös siihen, että riskiryhmiin kuuluvat eivät saisi tartuntaa lainkaan. waxaa isweydiin mudan sidee ayaanu uga hortegi karnaa xanuunkan. sababtoo ah dadka uu ku dhaco xanuunkan viruska koronaha qaarkood waxay u baahan yihiin in ay daryeel isbitaal helaan. sababtaas awgeed ayaa dalkan Finland iyo wadamo kaleba waxay isku dayayaan sidii loo yarayn lahaa faafitaanka xanuunkan uu dadka ku dhex faafayo. sidaas ayaanu markaa isbitaalka ama isbitaalada uga dhigi karnaa kuwa ku filan daryeelka dadka. xadayntaas la sameynayo waxaa sidoo kale lagu ilaalinayaa dadka u nugul halista cudurka si aanu marnaba ugu gudbin xanuunkaasi. Suomessa on päätetty monenlaisista rajoituksista, joilla taudin etenemistä ja tartuntoja pyritään estämään. Tämän vuoksi muun muassa suurin osa koululaisista on etäopetuksessa, monet työntekijät työskentelevät kotona, joukkotapaamisia ei saa järjestää, matkustamista on rajoitettu ja sairaaloissa ei saa vierailla. dalkan Finland waxaa la go'aamiyey oo dowladdu ay soo saartay go'aamo fara badan oo wax lagu xadaynayo. arrintaa darteed ayaa iskuuladii loo xiray, waxbarashadiina waxaa laga dhigay tan ah in qofku isagoo gurigiisa jooga uu dhinaca internetka wax ka barto. dad badan oo shaqaale ah waxaa loo diray guriga oo shaqadii ay ka dhex wadaan. waxaa la joojiyey kulamada dadka faraha badan ay isugu imanayaan. sidoo kale safarkii ayaa la xadeeyey. waxaa kaloo go'aan laga gaaray sidoo kale in aan isbitaalka la imaan karin oo booqasho aan lagu imaan karin. Tartuntoja estetään myös määräämällä tartunnan saanut eristykseen. Sellainen, joka on altistunut tartunnalle, eli on voinut saada tartunnan, määrätään kotikaranteeniin. sidoo kale tallaabooyinka xanuunkan looga hortagaya waxaa ka mid ah in qofkii xanuunku uu ku dhacay la amro in uu go'doon ku noqdo gurigiisa uusan ka soo bixin. qofka la kulmay qofka xanuunka qaba ee u dayacan ama u dagmay xanuunkaasi laakiin weli calaamadihii ayan lagu arag, isagana waxaa la amray in uu karantiil u galo. Kun koronavirustartunta todetaan, ei välttämättä tarvita sairaalahoitoa, mutta tartunnan saanut määrätään eristykseen. Tämä tarkoittaa, että ei saa poistua kotoa mihinkään. Hän ei saa käydä kaupassa, ei kulkea bussissa eikä käydä töissä. waxaan hadda ka hadlaynaa go'doominta. marka qofka la xaqiijiyo in uu ku dhacay viruska koronaha laakiin uusan u baahnayn daryeel caafimaad ama daryeel isbitaal, waxaa lagu amrayaa in uu galo go'doon. taa waxaa loola jeedaa in uusan guriga meelna ka aadi karin. dukaanka ma aadi karo, bas ma raaci karo, shaqana ma aadi karo. Hän saa tavata ainoastaan niitä henkilöitä, joiden kanssa hän asuu. Kotiin ei saa tulla vieraita. Eristystä jatketaan niin kauan, että oireet loppuvat ja tämän jälkeen vielä 1 päivän ajan. Eristys jatkuu vähintään 7 päivää. sidoo kale qofkaasi waxa uu la kulmi karaa oo keliya dadka isaga guriga kula nool. guriga ma imaan karaan wax marti ah. go'doonkaasna waxa uu soconayaa tan iyo inta astaamaha xanuunku ay dhammaanayaan iyo weliba kadib ugu yaraan 7 cisho. Tartunnan kanssa samassa kodissa asuvat ovat altistuneita tartunnalle. He voivat siis sairastua ja heidät asetetaan kotikaranteeniin. Heidän tulee toimia
kuten tartunnan saanut. dadka guriga kula nool qofka laga helay viruska koronaha waxa ay yihiin dad u dayacan xanuunkaasi. macnaheedu waxa weeye mar kasta ayuu ku dhici karaa. sababtaa awgeed ayaa iyagana waxaa loo gelinayaa karantiil. Kaikki sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet koronavirustartunnan saaneen kanssa läheisissä tekemisissä, ovat altistuneita tartunnalle. Heillä on siis mahdollisuus saada koronavirustartunta. dhammaan dadka ay is arkeen ama ay wax isweydaarsadeen qofka laga helay xanuunka viruska koronaha waxaa weeye waa dad u dagan ama u dayacan in xanuunkaasi uu ku dhaco, waxaana suurtagala markaasi in viruskaasi uu u gudbo. Sen jälkeen kun tartunta todetaan, tartunnan saaneelta kysytään, kenen kanssa hän on ollut tekemisissä kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Altistuneet asetetaan kotikaranteeniin 2 viikoksi. 2 viikon aikana selviää, ovatko myös he saaneet koronavirustartunnan. marka qofka viruska koronaha laga helay kadib waxaa la weydiinayaa dadkii uu la kulmay ama ay wax dhex mareen guriga dhexdiisa, goobta shaqada iyo goobaha lagu qaato waqtiga firaaqada ah. dadkaas u dayacan ee la kulmay qofka xanuunka uu ku dhacay waxaa la gelinayaa karantiil guriga ay ku noqonayaan muddo 2 toddobaad ah. 2 toddobaad gudahood ayaa waxaa ku kala cadaanaysa in ay iyagu xanuunkii uu ku dhacay iyo in kale oo virusku uu u gudbay iyo in kale. Kotikaranteenissa olija ei myöskään saa poistua kotoa. Hän ei saa käydä kaupassa, kulkea bussissa tai käydä töissä. Ihmiset, jotka asuvat samassa kodissa altistuneen kanssa, eivät ole karanteenissa ja he voivat käydä kaupassa ja hoitaa kodin asiat. dadka ku jira karantiilka guriga sidoo kale guriga kama bixi karaan, dukaanka ma aadi karaan, bas ma raaci karaan, shaqadana ma aadi karaan. laakiin haddii adigu aad guriga kula nooshahay qof la soo kulmay qof uu ku dhacay xanuunka viruska koronaha oo isaga karantiil la geliyey, dadkan kale ee guriga ku nool macnaheedu iyagu karantiilkaasi kuma jiraan, dukaanka way aadi karaan. On tärkeää, että me kaikki toimimme oikein, jotta voimme estää koronavirustartuntoja. waa arrin muhiima in dhammaanteen aanu u hoggaansanno talooyinka iyo howlaha naloo soo gudbinayo si aan uga hortagno xanuunkan viruska ah ee safmarka ah. Pysy kotona oman perheen parissa mahdollisimman paljon. Älä kutsu vieraita, älä vieraile muiden luona. Noudata viranomaisten määräämiä rajoituksia. Jos liikut kodin ulkopuolella tai tapaat ihmisiä, pysyttele 1,5–2 metrin päässä muista ihmisistä. waa in aad guriga joogto oo aad reerkaaga ku dhex jirto sida ugu badan ee waqtigaaga. yaysan ku imaanin dad martiya oo ha u yeeran cidna, adigana cid ha u martiyin. sidoo kale waa inaad u hoggaansanto awaamirta iyo xadaynta ay bixinayaan howlwadeenada dowladda. haddii aad guriga bannaankiisa ku soo socsoconayso ama aad dad la kulmayso, waa in aad isu jirsataan ugu yaraan 1 mitir iyo bar ilaa 2 mitir oo qofba qofka kale uu ka fog yahay. Jos aivastat tai yskit, käytä nenäliinaa tai yski ja aivasta hihaan. Pese käsiä usein ja hyvin. marka aad hindhisayso ama aad qufacayso waxaad isticmaashaa waraaqda sanka ama gacantaada ayaad afka sidaa ugu qarinaysaa. in badan gacmaha dhaq, si wanaagsanna isaga dhaq. Jos sinulla on todettu koronavirustartunta tai olet altistunut tartunnalle tai epäilet sitä, älä poistu kotoa. Jos tarvitset lääkärin hoitoa koronavirustartunnan vuoksi, soita ensin terveysasemalle tai päivystykseen. haddii lagugu sheegay in uu kugu dhacay xanuunkan viruska koronaha amaba aad u dayacmatay oo qof xanuunka qaba aad la kulantay, ha ka bixin guriga. haddii aad isleedahay waxaad u baahan tahay daryeel dhakhtar oo ku saabsan xanuunkan viruska koronaha awgiis, waxaad marka ugu horreysa wacdaa xaruntaada caafimaadka ama xarunta heeganka. Toimimalla oikein näiden ohjeiden mukaan voimme pelastaa ihmishenkiä ja suojaamme erityisesti läheisiämme. ugu dambayntiina waxaan leenahay in aan qaadanno talooyinka
iyo waanada iyo awaamirta nala siinayo ayaanu ku badbaadin karnaa nafta qofka, sidoo kalena aanu ku ilaalin karnaa dadka ehelkeenna ah ee noo dhow dhow.